Are you deaf? Dhagool ma tahay mise dhagaha maad la'dahay? I say to you, waxaan ku idhi, do you have some money? Wax lacag ah ma haysaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Moonlight Academy and welcome to our today's lesson, which is lesson 29. In our today's lesson, we are going to learn conversation 29 out of 100. And as usual, when we are taking conversation, we must have two person. The first one we used to take as A and the second one we used to take as B. Ardayda qaariga kusoo dhawaada Moonlight Academy. Kuna soo dhawaada casharkeena maanta oo ah casharka 29aad. Casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa wada sheekeysiga 29aad. Without further talk, let's jump to our lesson. Do you have some money? Do you have some money? Do you have some money? Wax lacag ah ma haysaa? Do you have some money? Wax lacag ah ma haysaa? Do you have ma haysaa? Some wax money lacag. Do you have some money? Wax lacag ah ma haysaa? Do you have some money? Wax lacag ah ma haysaa? Do you have some money? Wax lacag ah ma haysaa? Pardon, what did you say? Pardon, what did you say? Pardon, afwan, what did you say? Maxaa tiri? Pardon, afwan, what did you say? Maxaa tiri? Do you have some money? Wax lacag ah ma haysaa? Pardon, afwan, what did you say? Maxaa tiri? Marka ereyga pardon waxaad adeegsanaysaa wax aadan maqlin oo aad doonaysid in lagu celiyo ayaad leedahay pardon. Pardon, afwan, what did you say? Maxaa tiri? Are you deaf? Are you deaf? Are you deaf? I say to you. Are you deaf? I say to you. Do you have some money? Are you deaf? Ma dhagaha la'dahay? Are you deaf? Ma dhagaha la'dahay? Mise dhagool ma tahay? Are you deaf? Ma dhagaha la'dahay? Mise dhagool ma tahay? Deaf waxaa la yiraahdaa qofka aan waxba maqlin ayaa la yiraahdaa deaf. Are you deaf? Ma dhagaha la'dahay? I say to you, waxaan ku idhi, do you have some money? Wax lacag ah ma haysaa? I say to you, waxaan ku idhi, do you have some money? Wax lacag ah ma haysaa? Are you deaf? Ma dhagaha la'dahay? Mise ma dhagool baa tahay? I say to you, waxaan ku idhi, do you have some money? Wax lacag ah ma haysaa? How much do you need? How much do you need? How much do you need? Imise ayaad u baahan tahay? How much do you need? Imise ayaad u baahan tahay? How much waa imise? Do you need aad u baahan tahay? Need waa u baahnaan. How much do you need? Imise ayaad u baahan tahay? Only $15. Only $15. I will pay you back at the end of the month. I will pay you back at the end of the month. Only $15. Kaliya waxaan u baahanahay $15. I will pay you back. Waxaan kuu soo celin doonaa at the end of the month, dhammaadka bisha. Pay waa bixin, yacni deyntii aad qaadatay waad bixinaysaa. Marka taas waxaan ku magacaabaynaa pay. Backna waa dib, endna waa dhammaad, monthna waa bil. I will pay you back. Waxaan ku siin doonaa mise waxaan ku gudi doonaa at the end of the month, dhammaadka bisha. Mise bisha marka ay dhammaato ayaan ku siin doonaa mise ku gudi doonaa. Only kaliya $15. $15 ayaan u baahanahay. I will pay you back. Waan ku siin doonaa at the end of the month, dhammaadka bisha. Mise waan ku gudi doonaa bisha dhammaadkeeda. Do you have some money? Wax lacag ah ma haysaa? Pardon, afwan, what did you say? Maxaa tiri? Are you deaf? Dhagool ma tahay? Mise dhagaha maad la'dahay? I say to you, waxaan ku idhi, do you have some money? Wax lacag ah ma haysaa?
How much do you need? Imise ayaad u baahan tahay? Only $15. Kaliya waxaan u baahanahay $15. I will pay you back at the end of the month. Dhammaadka bisha ayaan ku siin doonaa. Pay waa bixin, back waa gadaal, end waa dhammaad, monthna waa bil. I will pay you back waan ku siin doonaa mise waan ku gudi doonaa at the end dhammaadka of the month bisha. I hope inaad fahantay casharka waxaa idinla socodsinayay anigoo ah Cabdikariim Xasan. Waxaan ku kulmi doonaa casharka xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.